haddii aad maqli jirtay dunida in geedka caleentiisa ay midba maalin soo hoobato gaar ahaan xilliyada caleemaha geedaha ay ka dhacaan haatan madaxdii caalamka ayaa midba mar uu soo dhacaya sabab la xiriira fadeexadaha galalka Epstein oo maalinba maalinka ka dambaysa mid ay la tagayso haatanna qofka aan sida gaarka ah qormadan warbixinta uga hadli doona ayaa waxa uu yahay Suldaan Axmed bin Sulayem ninkii muddada dheer DP World majraha u soo hayay isla markaasina galaangalka dhinaca dhaqaalaha ganacsiga iyo siyaasadaba ku lahaa dalalka Afrika ku yaala ee bariga Afrika Soomaaliya ay kamid tahay iyo sidoo kale Asia iyo meelo kamid ah Yurub haddaba waxa aan si gaar ah idin maqashin doona waa kuma Suldaan Axmed bin Sulayem maxay yihiin fadeexadaha haatan uu wajahayo sidee ayaa loo bedelay qofkee ayaa lagu bedelay sidaas ayuu u saameyn doonaa wadamada bariga Afrika oo Soomaaliya ay kamid tahay oo muddaba u kulug lahaa Suldaan Axmed bin Sulayem waxa lagu bedelay Isa Qaasim amaba Ciise Qaasim waana nin u dhashay isla wadankaasi Imaaraadka Carabta DP World oo ah shirkad weyn marka la fiiriyo dhinaca saadka ay maamuleysay dekedaha ay isaga kala goosheysay laga soo bilaabo dekedooda base-ka u ah ee Jabal Ali ee magaalada Dubai iyo sidoo kale adduunka intiisa kale terminaalada ku yaalo ay shirkadaasi gacanta ku haysay ayaa waxa muddo dheerba u ahaa ninkani tiirka dhaqaalaha ee magaaladaasi bariga dhexe ku taal ee Khaliijka ku dhawaaqistiisan in xilka laga qaaday ayaa waxa ay timid kadib markii kooxaha dhaqaalaha iyo sidoo kale tashixnadaha ganacsiga uu kala dhaxeeyay wadamadaasi Canada iyo boqortooyada Ingiriiska ah ay sheegeen inay hakiyeen ganacsigii mustaqbalka ee dhaqaalaha faraha badan uu ku kacayay ee shirkadda DP World ee la lahaayeen ka gadaal markii ninkaasi lagu soo cadeeyay in saameyn weyn ay ku yeelatay fadeexadihii muddooyinkii ugu dambeeyay la soo bandhigay haddaba sidee ayay fadeexada ugu yeelatay galalka ninkan Axmed bin Sulayem oo saaxiib dhow oo olog ah oo ay aamineen ay wada ahaayeen Jeffrey Epstein ninkaasi galalka wasaqaysan wasaaradda cadaaladda dalka Mareykanka ay soo faagayso iskale ayaa waxa ninkan ay ahaayeen laba qof oo aad isugu dhow waxaana laga dhaxelay emailladii faraha badnaa ee ku dhawaadka 3 milyan iyo 500 ahaa waxa sidoo kale laga dhaxelay sawiradii faraha badnaa 2000 ahaa waxa laga dhaxelay ilaa iyo muuqaalo 2000 ah ilaa iyo sawiro in ka badan 180,000 ah oo feelashaas ku lifaaqan intooda badan waxa uuna kamid yahay dadka sida dhow ay isugu dhawaayeen markii la qiimeeyay ama la arkay emailada ay isweydaarsadeen oo qaarkood ba halkan aan idinku akhrin doono ku aan is-iri waa muhiim alla ilahay dadka la wadaag haddaba maxay yihiin emailada ay isweydaarsadeen emailada dhexmaray Axmed bin Sulayem iyo sidoo kale Jeffrey Epstein ayaa waxa kamid ah kuwa ay ka buuxaan anshax xumo iyo ma aragtay wax dad waaweyn inay isu diraan amaba ay ka wada hadlaan ama ay sameeyaan ay tahay waxyaabaha xadgudubka ku ah nolosha aadanaha haddaba mid kamid ah emailada hadaan soo qabto ay isu direen waxa ay isu soo direen oo markii horeba soo diray Jeffrey Epstein sanadkii 2013 Epstein ayaa waxa uu qoray Axmed bin Sulayem waxa tahay mid kamid ah asxaabta aadka iigu dhow macnaha waliga dhulka imaadan dhigin ayuu taasi oo loola jeedo xushmada heerka aad ii hayso camal isagoo markaasina ka jawaabaya taasi ayaa Axmed bin Sulayem waxa uu yiri waad ku mahadsan tahay saaxiibkeeyow waana ka soo baxay tijaabadii 100% lama fasiri karo oo lama garan karo tijaabada laakiinse erayga ka dambeeya ee uu yiri ayaa waxa ay noqotay mid dad fara badani waxa laga hadlayay in uu bartanka kaga jiro ama dhiiqan ninkan lagu loo galiyay sida ay tahay ay u muuqato waxa uu yiri waxa doonteeda xilligan ila saaran mid kamid ah gabdhaha yaryar ee Russianka ah marka gabdhahaasi in uu ka soo qaatay Jeffrey Epstein goobtiisa lama garan karo in kaleeto balse emailka isweydaarsadeen dabcan waxa ku xardhan oo ka muuqdo in ay wada ahaayeen dad si weyn isugu dhow oo liifaaqanayay amaba isku maaragtay darsanaya arrimaha la xiriira fadeexadahaasi Axmed bin Sulayem ayaa waxa uu ahaa madaxa shirkadda DP World laga soo bilaabo 2007 haddaba ka sokow taasi waxaa jirta in Axmed bin Sulayem uu ahaa madaxa
uu ahaa markaasi madaxa dekada weyn ee wadankaasi Imaaraadka Carabta Jabal Carab Port la yiraahdo 1985 waxa xaqiiqa in badan oo idin kamid oo daawanayso in xilligaasi aysan dhalanin 1985 waqti horena ay tahay balse ninkaasi xilligaasi uu soo ahaa nin maaragtay dekadahaasi soo maamulayay waxa xusid mudan in ganacsiga sida la sheegay ee DP World ee la leedahay dunida inteeda kale intii uu joogay ay si weyn u hanan qaaday oo dunida oo dhan ay gaartay marka laga soo bilaabo hadii ay noqoto Shiinaha hadii ay noqoto dalalka kale ku yaala Asia hadii ay noqoto Afrika bariga Afrika Soomaaliya iyo meelo kale waxa xataa xusid mudan in meelaha sida weyn galaangalka ganacsi ay ugu yeelatay shirkadda DP World in ay kamid tahay dhinaca wadanka UK halkaasi oo ay gaarayeen konteenarada laga soo kala daabulo shixnadahooda ganacsiga dunida inteeda kale 10% ayaa dawladda Imaaraadka Carabta ay secure gareysay amaba ay haysatay in shixnadaha ganacsiga ee caalamka ay isaga kala goosto dhammaan qaaradaha adduunka waxa uuna ahaa ninkii loo nisbeenayay intaasi shirkadaasi inta ay soo jirtay in heshiisyadaasi caalamiga oo qaarkood ku saleysan 30 sano 40 sano 50 sano uu la gaaray dalalkaasi waxa xusid mudan in dalka Imaaraadka Carabta waxa ugu badan ee uu ku tashanaya ay ahayd markii saliidooda ay dhamaato dabcan wadankaasi saliida qaniga ku ah in ay dhinaca kale helaan wax ay dhaqaale ahaan ku tiirsanaadaan oo ayaga seeska u dhigi kara noloshooda taasi oo ah in shixnadaha ganacsiga ay leeyihiin dunida ay ku sii faafaan sidoo kale tan dekadaha ay la galaan kontaraadyo 30 sano 40 sano 50 sano kuwaas oo waligood u joogaya dhaqaale malaayiin dollarna bil walba ay ka qaadanayaan intaas oo dekadood ku dhawaad 80 wadan ayay la galeen heshiisyada dekadaha oo dekadahooda ay joogeen oo ay maamulayso shirkadaasi DP World waxa xusid mudan dhinaca Somaliland oo kaabiga ku haysa badda cas iyo sidoo kale marinbiyoodka istiraatiijiga ah iyo wadanka Yemen ayaa DP World sheeda kore waxa ay ka aragtay in heshiis ganacsi oo Somaliland ay la gasho muddo aad u dheer waliba uu noqon karo mid si weyn ugu saamixi kara in dekada Berbera oo istiraatiijig ah dhinaca dhaqaalaha dunidana isaga kala gooshi karta ay gacanta ku dhigi karaan sidaasi awgeed DP World oo isha ka qoraansanayso Afrika inteeda kale gaar ahaan wadanka Ethiopia oo malaayiin dad ay ku nool yihiin ayaa waxay u yimaadeen Somaliland waxa ayna la galeen heshiis dhaqaalihiisa aan idin sheegi doono oo lacag aad u fara badan ay ku kacayso ujeedadaasi waxay ahayd ka gadaal markii DP World laga soo saaray wadanka Djibouti oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo ayaga markii Ismaaciil Cumar Geelle uu ka baxay heshiiska dekada ay la galeen Doorale ee maaragtay dhinaca Djibouti kadib maxkamad la isla aado maxkamadaasi Djibouti ay ku raysay ka gadaal markii taas ay ku dhacday DP World iyo Imaaraadka Carabta isla markaasina horey looga soo eriyay wadankaasi Eritrea ayaa hadana dhinaca kale ukumaha waxa ay soo dhigteen dhinaca Somaliland haddaba Somaliland DP World maxay ka dhex arkaysaa sida aan sheegaba shixnadahooda ganacsiga inuu gaaro bariga Afrika intooda badan ayay rabeen waxaana xusid mudan dhaqaale xoogan inay ku bixiyeen hadii ay noqoto dhismaha dekada hadii ay noqoto banaanka ee wadooyinka qaarkood oo dhaqaale ay galiyeen iyo sidoo kale ayagoo muddo 30 sano ah Somaliland heshiis kula galay heshiiskaas dhaqaale dhan waxa ku baxayo 442 milyan oo dollar ayada oo 65% dhaqaalahaasi ku baxay dekadaasi ay dhinaca kale ay lahaanshiyaheeda yeelanayso shirkadda DP World sidaas ay tahay Somaliland markii heshiiskaasi ay la gashay dhinaca dekadaha ah ama dekada Berbera ah DP World kuma aysan ekaan intaas oo kaliya waxa ay waayadii ugu dambeysay siyaasiyan ay faraha kula jirtay arrimaha siyaasadda bariga Afrika wadamo badan oo kamid ah Suudaan oo ogtihiin waxa ka dhacay iyo dhibaatooyinka halkaasi ka jira iyo dagaalada oo la aaminsan yahay Imaaraadka Carabta in uu salweyn ku leeyahay oo markaasi shixnadahooda ganacsiga ee barbar socdeen dhinaca kale sida dad fara badan ama warbaahinta qaarkood ba ay warinayso in hub wadankaasi uu keenay Soomaaliya meel kamida qaarkoodna la sii dhoofinay waxaad ogtihiin sidoo kale gudaha Soomaaliya marka aad fiirisid maamulada Jubbaland iyo Puntland ka soo Somaliland ayay olog iyo saaxiib dhow la ahayd Imaaraadka Carabta
waxaana xusid mudan in dhinacyadaasi maamuladaasi Jubbaland iyo Puntland oo saaxiib dhow la ah Imaaraadka Carabta aysan dowladda dhexe federaalka Soomaaliya isku fiicneen. Imaaraadka mudaba waxaa la hadalhayay kaliya ma ahan in ay howlo ka waday ay ka mid tahay dhaqaalasiinta ciidamada Soomaaliya, barbar istaaga goobaha isbitaalada iyo waxyaabihii la halmaala ah, laakiinse iyo dekedaha balse dhinaca kaleeto galaangal siyaasadeed oo xoogan ay ku lahayd wadanka, iyada oo maamul goboleedyada qaarkoodna ay yihiinba kuwa ayadu ay si toos uga amar qaataan sida ma aragtay in ay u yeeriyaan waxyaabaha ay rabaan mararka qaarkood sida wararku ay sheegay. Haddaba Axmed bin Salayem waxa uu ahaa sidaas aan soo sheegay nin aan marnaba la dhuumanin, waxa uu aaminsan yahay Somaliland ku barbar taagnaa dunida inteeda kaleeto in ma aragtay aqoonsi looga helo. Warar ayaa sheegayay ku salaysan in Somaliland helitaanka ay heshay ictiraafka dhinaca Israel ay qayb ka ahayd dowladda Israel ee saaxiibka yihiin Imaaraadka. DB Worldina ay ahayd coverka hoose amaba cidda sida hoose uga waday. Waana taa sida dowladda Soomaaliya xubno kamid ah wasiirada ay sheegeen keentay in dowladda Soomaaliya ay markaasi ganafka ku dhufato oo ay ka saarto wadanka Soomaaliya howlgaladii ay ka wadeen Imaaraadka Carabta. inkastoo ay xusid mudan tahay in Imaaraadka Carabta aysan wali si rasmi ah u guurin sabab la xiriira madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaantan waraysigii uu siiyay ku sheegay Al Jazeera in xiriirkii si rasmi ah 100% uusan u go'in maadaama ayuu yiri safaaradeenina ay ka furan tahay dhinaca Imaaraadka Imaaraadkana ay ka furan tahay dhinaca Soomaaliya. Dhaafno sidaas iyo nabadgelyo.